لوق آدو عريرية مركز صبح إن شاء الله بإذن الله وأوجد بيننا وحنا سكدينا إنه إن شاء الله أيلو مرنو مركز تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه مرنا أيلو سكدينا طبعا ولي واسيس عنا ولي ماشي القرآن كسر دقي ولي ما إنن قارن صوصع صوصع walaalayaal meeshaan hadda aan ku suganahay ama godkaan hadda u jeedaan waa god waxa weeye magaciisa la yiraahdo qaarul xir ayaa la yiraahdaa rasuulku sallallahu alayhi wa sallam intuusan nabi noqon ka hor ayuu meeshatan iska iimaan jiray isaga oo ka fakaraya ilaahay samadan iyo dhulkaan khalqay iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida uu koonkaan u khalqay isaga oo ka fakarsan habeenada kamid ah oo ay tahay bil ramadaan ayaa waxa uu yimi halakan isagoo jooga طبعا nabigu markuu halkan iimaan jiray muddo ayuu iskaga dhix jiray dhowr maalmood ayuu iska joogi jiray raashinkiisa iyo sharaabkiisana horay ay u soo qaadan jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo halkan iska joogo oo iska cibaadeysanaya ayaa waxa uu yimi malaku jibriil ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo u soo diray markaas jibriil waxa uu ku yiri nabiga sallallahu wa sallam alayhi markuu u yimi ayuu wuxuu jibriil nabiga ku yiri iqra ayuu ku yiri markaas ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri أخي بكوير ولا كيو ما أنا بقارئ يا أخي بكوير وحنا ما أخري وحنا ما قرأ مركز كوير مرلبات أيوه كوير اقرأ والآخرين ساي أخري أيوه كوير مركز كوير ما أنا بقارئ يا أخي مركز كوير هذا اقرأ وآخرين ساي أخري مركز أيوه وحوي وآخري جبريل ووحو كوير واحد هذا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أيوكو رسولك صلى الله عليه وسلم مركز رسولك كدب يري أو حفظي marka ay arintaas dhamaatay kadib ayuu nabigu soo baqsan oo argagaxsan oo gariiraya ayuu buurata ka degay kadibna waxa uu tagay xaaskiisa Khadiija ayuu u tagay ilaahay raaliha ka noqday isagoo wuxuu leeyahay idaboola isagoo leh oo baqsan ayuu gurigiisa tagay markaasay Khadiija ilaahay raaliha ka noqday nabiga ay dajisay oo tartiib ula hadashay oo waxa weeye markii ay baqdintu ka baaday kadib wuxuuga degayna waxa ay ku tiri ii waran maxaad soo aragtay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay wuxuu la soo kulmay iyo wixii uu arkay iyo wixii uu maqlay ayuu Khadiija u sheegay markaas Khadiija ilaahay raalaha ka noqday waxa ay ku tiri walaalkayna adeerkayow waxaan kuugu bishaareynayaa oo ilaahay kaaga rajeenayaa inaad noqonaysid nabigii ummadda tan inaad noqonaysid ayaan waxa weeye ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaaga rajeenayaa waa calaamado cadeynaya inaad nabi ummadda tan u noqonaysid qof aqli badan oo raaliya oo naxariis badan oo markastaba xikmad leh ayay Khadiija ilaahay ka raali noqday sidaas ayaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo quraanka ku soo dejiyay maantana adduunka oo dhan waxa weeye quraankaas aynu wada haysano meesh uu ka bilowday oo waxa uu ku soo degay waa halakan ama waa qaarul xira oo meeshan hadda aan ku suganahay marka Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa waxa idin ka codsan in la dayicin rasuulku marka uu quraan ku soo degay dabcan 40 jir ayuu ahaa rasuulku sallallahu wa sallam alayhi إن شاء الله بإذن الله تعالى إلهي وحن أقبرينا قف كست أو مسلنا أو كتابك إلهي حفظية أو قرآنك إلهي حفظية إنه إلهي أقدق قرآنك كيو شفع قادلها إنه إلهي سبحانه وتعالى أقدق لها قرآنك كيو وحوي جنة أقد بلها ودرجات أقصرية وكفول لها أيان الله أقرجيني سبحانه وتعالى قف كست أو فيديو قال ولا ليس كلا أسي شرقرية أو مسلمين تجارسية أو تصمي شيء وحي وكسر دقينا إلهي وحن أقبريا سبحانه وتعالى إنه حافظ القرآن كدقه وإلهي أجري حسنات وكسيه خيرك iyo dacwada fidinteeda ayaan Allah subhanahu wa ta'ala uga rajeynaya dhamaantiina waxa idin ka codsanay inaad quraanka ilaahay dayicin oo quraanka ilaahay la akhriyo oo ma ilaahay keeno la isku dayo inaad xataa waxa way dhowr aayadood aad kalaamka ilaahay walaaya ka akhridaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ajr iyo xasanad alla soo koobi karin haydan ka siiyo inta ay daawanayseen fiidiyogaana u sii shargar walaalaha kale muslimiinta ilaahayna inagii kulligeenba hayno ka dhigo sadaqa jaariya cid kasta oo qisadan waxyiga waxa weeye barnaamijkeena kan ku daawata waxana weeye khayr baa idin rajeynayaa sidaas iyo assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.